barnaamijkan gaarka ah waxaanu ka soo qabanay shalayto maxkamadda magangeliyada ummadda Soomaalida Muqdisho waxa uu ku saabsan yahay go'aankii u dambeeyay oo maxkamaddu ay ka gaartay dacwadii dadkii loo haystay in ay dileen madaxweynihii hore Cabdirashiid Cali Sharmaarke ee Soomaaliya. madaxweynaha maxkamadda magangeliyada ummadda Soomaalida Cornel Maxamed Sheekh Ismaan oo dacwada bilaabay wuxuu hadalkiisii ku yiri waa furantahay magaca shacabka Soomaaliyeed maxkamadda amniga dacwadii ay gashay bishii 14 September ilaa 30keedii oo ku saabsaneeday Saciid Yuusuf Ismaaciil iyo Maxamuud Yuusuf Ismaaciil Sheekh Nuruddin Cali Colow Aynab Faarax Miraaf Bedel Xirsi Faarax iyo Cabdi Rabbi Raage in ninka horana oo ahay ninkii presidentiyay wadanka Cabdirashiid Cali Sharmaarke dilay 15 October sanada markay aheeday 69ka saacadu markay tahay 1:45 daqiiqo intooda kale intana ay ahaayeen sidii lagu soo dacweeyay nimankii diyaariyay ama qaamqaamiyay balaankii lagu dilay lahaa maxkamaddu markay dhageysatay sidii qawaaniintu ahayd waxa la wixii case-kaas ku lahaa ama markhaatiya ama document ama taqaatiirtii ay bixiyeen bariitihi markaan eegnay maxkamaddu waxay gaartay xukunka hadda halkan aan ka sheegi doono sida la ogyahay 15 October waa la dilay president Cabdirashiid Cali Sharmaarke isla maalintaas Axmar uu soo wareejiyay meydkiisii 19 October-na waxaa la sameeyay komishinkii baari lahaa dacwadaas sidii uu ku dhintay ex-president Cabdirashiid Cali Sharmaarke dacwadaas iyada amsana waa la soo wareejiyay oo waxa uu soo wareejiyay burco ayaa laga soo wareejiyay maxkamadeeda oo waxa uu soo wareejiyay maxkamadda Banaadir isla haddana amsana labaad amsana waa la sii wareejiyay waxa laga soo wareejiyay maxkamadda Banaadir oo waxa uu soo wareejiyay koortka amniga halka sida laga warqabo Saciid Yuusuf Ismaaciil markii uu dilay presidentaha declaration ayuu bixiyay oo ka bixiyay ama bilis kortiisa ama juudishaha distrataha Laascaanood oo labadaba uu leeyahay inkastoo kala duwanaayeen uu leeyahay presidentihii ana dilay sababtan dilna waxay aheeday buntiqii ayaa iga fakaday markii aan kor soo qaadahayay ayaa fartaydu ay taabatay meesha laga rido xabaha markaas iga fakadeen labadiiba sidaas ayuu ku yiri dibadda xamar uu soo wareejiyay waxa lagu xiray xirada birmadka booliiska ayaa lagu xiray markii lagu xiray 13 November ayuu declaration baxshay declaration isaga uu ku leeyahay aniga moogiye dad kale oo 5 ah ayaa jira oo igula jiray dambiga kan oo ila qaamqaamiyay oo ii dhisay sidii aan ku diri lahaa presidenta declaration dheer oo xamar iyo burco iyo Laascaanood intaba ay soo galayso iyo ayl Virginia ayuu bixiyay wuxuu sheegay kulli isugu tagay wuxuu sheegay gaari ay wada raaceen Sheekh Nuruddin iyo isaga iyo Maxamuud Yuusuf Ismaaciil wuxuu sheegay lacag 40,000 shilin ah oo la siin lahaa hadduu sameeyo presidenta hadduu dilo iyo 50,000 ka dambeyn lahayd oo taa la siin lahaa wixii oo dhan markii la soo geeyay wuxuu yiri presidentihii sida ku tiilay declaration isaga presidentihii ana dilay laakiin sababta ku dili lahaa mid ay dhisay ayuu ku yiri taasoo la hor keenay maxkamadda markii la furayna Saciid uu qirtay wuxuu yiri dambigii ana iskale ana dilay presidentihii laakiin cid igula jirtay bay jirto marka maxkamaddii marka maxaa hor yaala waxa hor yaala la soo hordhigay dacwad dhisan oo lagu soo dhisay hal confession marka waxaan isweydiinay maxkamad ahaan in Camera Concilio maxaa proof ah oo naloo keenay oo keeska ku saabsan wixii markii la kala qaadqaaday waxay isugu yimaadeen confessionii Saciid buntiqii uu ku dilay
14 boosale 14 buufuuq si xabaduhu ka dhaceen oo wax kale aan lahayn iyo markhaatiyo uu ugu weyn yahay Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen presidentihii hore oo baarlamaanka iyo rag kale oo kamid yahay Ali Karaani oo cadeynayaan meeshii presidentaha lagu dilay sidii loo dilay bay cadeynayaan kulligood taasoo aheeday weligeed mid aanan shaki ku jira aanan ahayn marka waxaa misna su'aasha labaad waxay tahay dikaraasyoonihii uu bixiyey ama konfesyoonihii Saciid bixiyey maxkamaddu ma qaadan kartaa ama ma qaadan karto question kan weey jawaabtu waxay noqotay maya waxaysan qaadan karinin marka ugu horeysa waxaa la isku waafaqsan yahay ama sharciga doctrinada ama jurisprudence-ha labadaba ninku marka uu leeyahay dambiga kan waa la igula jiray oo dad kale oo ku saareenhay inay shuruudaad inay leedahay ayaa loo baahan yahay shuruudaadkaasi maxaa kamid ah waxaa ugu horeeya marka ugu horeysa degdeg immediate degdeg waxaa ku xigta spontaneity yani inuu asagoo aanan cabsi ku jirinin oo ma garatay fikir la'aan spontane wax inay yihiin waxaa ku xigta constant inay wax isla markii inay isla ayaga leeyihiin inuu hadii jeer uu leeyahay waa isla ayagi waxaa ku xigta coherence inay wax iswaafaqsan oo qaba kara inay yihiin corroborata yani hadalka uu sheegay in wax kale oo akidahaya inay jiraan iyo disinterestata inaan wax danahay aysan ku jirin lixdaas requisite ayaa laga maarmaana markuu ninka uu leeyahay dambiga waa lagu jiraa inay hadalkiisu inuu lixdaas arrimood waafaqsan yahay baa shardiya sida ama doctrinada ama jurisprudence-ha ama sharciga waddanka ay cadeynayaan marka aanu eegno dikaraasyoonka Saciid bixiyey lixdaas requisite ma leeyahay masala waxa ugu horeysay immediate ma aha konfesyoonka Saciid bixiyey wuxuu bixiyey 13 November presidentana wuxuu dilay 15 October sabtamiinta wuxuu bixiyey 8 casho dibadeed ayay noqonaysaa marka ma noqon karto immediate waxaa noqon kara dikaraasyooni uu ka bixiyey laascaanood juudisha hortiisa iyo biliiska hortiisa dikaraasyooni uu ka baxshay ayaa noqon kara immediate waxaa ku xigta spontane waxaa loola jeedaa wixii yani iyadoo aan lagu khasbin ninku inuu asagoo yani ogol inuu caddeeyo yidhaahdaa anigaa maaragtay wax kan sameeyey spontane ma jirto maxaa yeelay wuxuu leeyahay maxkamadda horteeda asagoo dhaarsan waa la idilay waana la igu khasbay dikaraasyoonhaas ayuu leeyahay marka looma qaadan karo spontane halka inay ku jirto waxaa jirta coherence maxaa loola jeedaa inaan wax iskhilaaf dikaraasyoonha aysan ku jirin sida aan hoos ka sheegi doono khilaafyo badan baa ku jira dikaraasyoonha marka coherence ma aha arrimo iska soo horjeeda oo aan iswaafaqi karin inaysan meesha ku jirin baa laga maarmaana waxaa loo baahan yahay constant inuu yahay constant waxaa la yidhahdaa inuu hadda isla hadalkii inuu ku celinayo hadduu maalintii ugu horreysay uu yidhi presidentihii sidaasaan u dilay inuu ilaa ay ka dhammaato isla kiile uu ku celiyaa mar haddii uu ka noqdo mar ama uu bedelo constance ma jirto waxaa laga maarmaana inay jirto corroborazione maxay tahay in arrin kale ee hadalkaa uu ku hadlay garab siinaysa inay jirto iyadana hadalkii Saciid uu ku hadlay wax garab siinaya haba yaraatee maxkamadda horteeda lama keenin midda ugu dambaysa waxay tahay disinterestaato inuusan ninku asan dan ku wadanin dikaraasyoon soo bixinayo inuu yahay mid yani aan dan lahayn waxay raacaysaa coherence ay raacaysaa marka iyadana disinterestaato ma aha oo dilkii soo galaysa uu sheegtay oo leeyahay waa la igu khasbay uu sheeganaysaa marka intaas waa inta xaggii sharciga haddii la eego dikaraasyoonihii ridaysa marka aanu eegno coherence yani sida uu isugu daba ridan yahay dikaraasyoonhaasani sida uusan u tifaftiran yahay uusan asaan u lahayn maaragtay khaladyo uusan u lahayn iyo hadduu u leeyahay haddii kaleento waxaan leenahay khaladyo badan baa ka buuxa dikaraasyoonha kan oo diidahayo caqligu diidahayo in la qaado maxaa ugu horeeya waxaa ugu horeysa marka ugu horeysa taariikhdii uu yidhi fasax baan ka soo qaatay burco oo xamar baan imiday burco ka soo baxay 29 September gaari xoog leeyahay ayuu soo raacay jidkii uu soo qaaday ceelbuur bay soo mareen oo ku istaageen xoogaa xamar bay yimaadeen marka Sheekh Nuurdiin Cali Colow wuxuu xamar ka baxay 3 October 29 ayuu ka soo baxay waa ku celinaya hadalkaas Saciid wuxuu ka soo baxay burco
marka haddii sheekh nuur uu ka baxay 3 Oktoobar oo xamar ka baxay isagoo u jeeda conference islaamika oo lagu sameynayay Jeddah isma arki karinin saas daraadeed hadalkii uu yiri Saciid waanu kulannay markaan xamar imiday habeenkii hore waxaan ku degay ribaarta kumaando Fort Sheikh dibadeedna walaalkay baan u guuray dibadeedna sheekh nuur baan ballan la lahayn oo aan kula kulannay sinima xamar horteeda gaari asagoo wata waa beenoohaya waa ceebalka uu leeyahay dikrasyoonu ceebalka labaad dikrasyoonu leeyahay waxay tahay wuxuu leeyahay Saciid dikrasyoonihiisa markuu imaanayay presidentiga Mauritania Mukhtar al-Wadaada habeenkeedii ayaanu la kulmay sheekh nuur markaasa lacag 40,000 oo shilin ah iyo 2 bombal ii keenay oo la yiri ku dil markaasaan waxaan istaagay meesha wali cadde burka korkiisa markaasaan sugay markuu soo marayay presidentihi mugdi bay noqotay oo waan la haleeli waayay bombadii ayuu leeyahay saacadaas iyada sheekh nuur Maxamed ma joogo sheekh nuur sidii hore aanu sheegnay 3 Oktoobar Maxamed ka baxay wuxuuna ku soo noqday 7 November ayuu ku soo noqday xamar maalintii uu ka dhoofay Mukhtar al-Wadaada xamar uu ka dhoofay saacada dibadeed ayuu sheekh nuur soo galay magaalada xamar soo daraadeed isma arki karin waqtigaasi waa waqti aanan aqli gali karin weey marka haddii ay cadaatay in aysan is arkinin waqtigaas Saciid sheegay iyo sheekh nuur aysan is arkin haddii cadaatay arrintii dikrasyoonihii ku dhisnaa sheekh nuur ku dhisnaa salligiisa ku dhisnaa sheekh nuur kulligiis ceebal buu yeelanaya oo maxaa ka mid ah waxaa beenoohaya markii ugu horeysa baabuurkii la isku arkay ma jiraa ma sameeya baabuurkii aaway waxaa la leeyahay iyo shirka la qaatay oo 4 kilomitir la tegay Maxamuud iyo sheekh nuur iyo Saciid waxaa beenoohaya lacagtii 40,000 ahay oo habeenkii la keenay waxaa beenoohaya 2 bombo waxaa beenoohaya gurigii boon yar la isugu tagay way ka qayb galeen Kaarshe Dalmar iyo Yusuf Muuse iyo Saciidka Maxamuud iyo sheekh nuur lixdooda ay ka qayb galeen marka intaasi waa ceebaha uu leeyahay dikrasyonaha Saciid baxshay wali waxa kale jirta oo ceebaha kale uu leeyahay waxa kale kamid ah waxa la sheegay 2 askari oo la yiraahdo Ismaaciil Cigaal iyo Maxamed Cabdullaahi Xaashi ee ku arkeen Saciid guriga taniintii bedel xirsi la faanood gudihiisa dibadeedna uu gaari ku qaaday ee uu geeyay xerada daraawiishta oo ah meesha ay u ahaan jirtay kaambada kus controlka la faanood waxay tahay 2 askari oo biliisa oo shaqada haysa inaysan dhib lahayn arkadeedu marka lama keenin dikrasyoon kama aysan bixinin ma aysan cadeyninin inay Saciid ku arkeen guriga bedel dibadeedna uu gaari ku qaaday oo xerada u geeyay marka intaasi waa inta dikrasyoonihii Saciid bixiyay ceebaynaysa xaggii loojikada diidaysa marka maxkamadda marka maxay leedahay marka waxaan leenahay komisyoonkii baaray arrintan oo Dr. Cabdi Faarax Baashan oo madax u ahaa waajibaadkoodii ma aysan gudanin sidii la doonayay arrintii uma aysan baarin waxay isku shuqleen kaliya halka dikrasyoone sida asagu uu rabay waafaqsanaa inuu ku kooba dacwadiisii oo dhan oo aanan la baarinin haddii ay jiraan iyo haddii kale dad kale ee lu kulahaan kara dilida presidenta laysuma shuqlin xataa in sheekh nuur waddanka joogay in kale arrin sahal ah immigrationka xafiiskiisa la tago kaliya unbaa kafaaya aheed ee la yidhaahdaa fayl buu ku leeyahay nin waliba oo dibadda aadayey la yidhahdaa warqiiqan gorma waddanka ka baxay gormuuna soo galay laysuma shuqlinin wax alla wixii dikrasyoone ahaa ee Saciid ku hadlay ka hor iyo kadibba in ay warkaan uu ku hadlay wax aqli geli kara inay yihiin iyo in kale laysuma shuqlinin taasoo ah khasab ah sharciga ayaa dhigahaya ninka police officerka ama ninka yani ninkastoo marka civil servant ama public official ah oo shaqada haya inuu wax alla wixii dacwadda uu hayo baaridda uu baarahayo in uu daldarool ka reeba taasi kamid tahay inuu sameeyo diyaari dalindaha jini inuu bilbaala qaadaa marka maxkamadda horteeda waxaa ka caddaatay in Dr. Baashan inuu yidhi dikrasyoone kama aanan qaadinin maxaa yeele looma baahnayn waa loo baahan yahay khasab wey dikrasyoonigu waa khasab sharciga ayaa dhigahaya artikalka 25 iyo kan 94 ayaa dhigahaya inay khasab ku tahay wax alla wixii acta ah oo lagu hadlayo in la qoro la record galayo
haddii taas ay imaan weysana meeshii dembi weyn ba ka soo baxay. marka maxkamaddu waxay leedahay haddii ay jirtay dad lug kula lahaa Saciid Moogiye dad kale ay jireen lama baarin sidii la doonayay lama baarin, taasoo keentay in maxkamaddu aysan xukunkeedii keliya ay intii loo keenay ay ku beesgaraysaa intii la soo horreeyay keliya. intaas waa intii ka wada dhexaysay ragga 6 ee halkaa ku jira. marka waxaan gelaynaa nin baan marka u gelaynaa 6dooda. waxaan ugu hormarinaynaa Cayna Faarax baan ugu hormarinayaa. Cayna Faarax waxaa lagu soo dacweeyey nin la yidhahdo Faarax Warsamo Cali ayaa wuxuu yidhi bishii September bil ka hor barsantaa bishii la dilahayay anigoo jooga dabka meesheeda ayuu ii yimiday, markaasuu wuxuu ii soo jeedsay inaan barsantihi dilaa, aniguna waan ka diiday. marka ma la qaadan karaa digarsiinaas ma sameeyo? maxkamaddu waxay leedahay lama qaadan karo. sababtan loo qaadan karin maxay tahay? marka ugu horeysa Faarax waa nin odaya waayeela jiran vagabond ah, shaqa la'aan 50 sano iyo zaa'id shaqa ma qaban, guri ma laha, sansakiisa dimora la yidhahdaa. waa ninka magaratay iska warwareega habeenba meeshii ka soo hormarta seexda, xabis galay marar badan. wax abilitaa ah uu leeyahay, wax kusita uu leeyahay inuu sameeyo dembiga asagaana ma jirto. marka waa ninkii markhaatiga ahaa dikarsiintiisii. haddaan loojika u kacno waxaa caddaatay Faarax Caynab iyo Faarax inaysan ka dhexayninin wax saaxiibnimo ah ama qaraabanimo ah. marka inuu u sheegto arrin saa u weyn oo yidhaahdaa ku aaminaa maxaa keenay, weliba meel aanan masnuuc ahaynoo ah sideedii umbartiisa ah. waxaa keento yani loojikuu diidahaya. Faarax nin odaygu ahaa jiran, lacag buu u baahnaa, haddii la yidhahdo lacag buu siinaya, waxaa yani la tahay maxkamadda inuu qaadan lahaa. hadduusan qaadanin ee nin wadaninimo uu yahay, nin wadani uu yahayna inuu markaa inta ordo sida qawaaniinta ay ku khasbayso asaga laftirkiisa oo u tago biliiska ama awtarta jazaariya oo u sheego oo yiraahdaa war nin baa yiri presidentihi baa la dilahaya, taasoo keeni laheeday presidentihi hadday run tahay inuusan presidentihi asaan dhintin. ma uusan yeelinin faruu ka qaaday presidentihi markii la dilay dibadeed 25 maalmood ka bacdi markii presidentihi la dilay ayaa asagoo baar iska fadhiya ayaa nin biliiska soo fadhiistay, markaasoo iyadoo la sheekaysanayo ayuu yidhi maalin baa nin saa yidhi casualmente ayuu yidhi. ninkii biliiska markaa hadalkii la orday, markaas hadalkii dariiqa u lahaa lama siiyey. marka waxaa kalentoo laakiin la yaab leh in Caynab markaa uu xiran yahay maalintii presidentiga la dilay 2 maalmood kadib baa la xiray. Faarax Warsame dikarsionihiisii ma jirin markii la xiray. 17 Oktoobar ayaa la dilay. presidentana wuxuu dhintay 15. Caynabna wuxuu dhiibay dikarsiyonaha 25 maalmood ka bacdi bishii September 9keedii ayuu baxay. taasoo ku tusaysa marka in Caynab inaan lagu xirinin dikarsiyoonihii uu bixiyey Faarax Warsame Cali. haddii ay ahaan laheeday Faarax haddaan dikarsiyoonihiisa aan qaadan lahayn sida uu noo yidhi, haddaan qaadan lahayn Faarax dembiga lagu soo sheegay Caynab dembiga ma gelin. sababtana waxay tahay waa dembi kale, waa istigasiyooni dembi la yidhaahdo. istigasiyonahaasoo aanan la qaadanin, taasoona keenaysa in uun masuuliyadda sukureedka ida laftirkeedu ma aha dembi, ma aha ciqaab keenahaya, ma aha. hadduu nin yidhaahdo dembigaa gal uu ka diido lama dhihi karo dembigii buu galay. waa istigasiyooni non acolta, waxa weeye waano aan la qaadanin ama istigasiyooni la damcay in ninkasan in la gelinsiiyo uusan asaan gelinin waayo. marka ma ahan karto konkorsa uma jeediyo. maxaa yeelay sida laga warqabo Saciid Yuusuf Ismaaciil konfessionihiisa ma uusan soo hadal qaadinin Caynab Faarax Mira. wax kontaata ah oo ka dhaxeeya Caynab iyo ragga kalentana lama sheegin. taas daraaddeed Caynab maxkamaddu waxay la tahay dembiga asaga ah inuusan asaan gelin. waxaa ku soo xiga Sheekh Nuur iyo Maxamuud. Sheekh Nuur sida nagu caddaatay waxaa la yidhi khaarijku jiray. marka mar haddii waktigii ku dhisnaa dembiga oo dhan ba ay caddaatay Sheekh Nuur inuusan waddanka asaan joogin haddii caddaatay, wax burooba ah oo xaqiijinaya ama markhaati ah arag ay wada yeesheen Maxamuud iyo ragga kalena ma jiraan. marka taas daraaddeed iyadana waxaan leenahay Maxamuud waxaa laga soo helay gurigiisa markii la fatashay 1 musawir iyo 2 dikarsiyoone, 2 warqadood oo u dhiganayo barsantii hore Cabdirashiid iyo Cabdirasaaq Xaaji Huseen markuu dawladda madaxda u ahaa uu ku weydiisanayo caawimaad
iyo hal masuura sheekh nuur leeyahay saddexaas ayaa laga soo helay ninkii majirka ahay major Saciid Nuur ee soo baaray arrintaas wuxuu yiri anigu Maxamuud Yuusuf Ismaaciil dambi oo galay kuma aan xirine amar la isiiyay ku xiray taas oo cadeynaysa inuu san wax dambi ah san ku arkin sidaas inay maxkamadda ugu muuqatay ila waafaqsan tahay sabdaradeed isagana wax dambiya loo macday bedel wuxuu ahaa commandant istaasyoonihii Burco ayuu ahaa meeshii barsandaha lagu dilay laascanood waxa cadaatay maxkamadda horteeda gobornatorihii Burco Lieutenant Colonel Maxamed Saqadi oo divisionka Burco xukumay hayay komisariya laascanood iyo vice inspector Faarax Xasan oo special branch ka tirsan ee loo diray inuu Garowe iyo laascanood aaminkeeda oo ilaaliyo wax barsandaha ka soo horjeeda hadday jiraan iyo haddii kale intu waxay noo cadeeyeen in bedel si daacad ah shaqadiisa uu samaystay inuu u gutay waajibaadkiisii inuu sameeyey security plan inuu sameeyey dilida barsandaha la dilana ay aheeday arrin aan la filayn un fatto imprevisto ed imprevedibile taasoo noqotay nin biliisa ee buntakii dowladda haysta inuu amniga ku ilaaliyo ku isticmaalay marka waa waxaan la filayn bedel haddii uu logic haweytan haddii bedel uu ku jiri lahaa arrintaas marka ugu horeysa markii barsandaha uu la dilay ninkii ugu horreeyay oo qabtay buu ahaa Saciid Yuusuf Ismaaciil markii General Qorsheel isagoo iraha arbushan oo qaydiyay oo yiri dila ninka oo yiri askarta amar siiyey bedel waa ka ceshay waa hor istaagay waa askartii suurtagal heeday in markaa wax la yiraahdo linkaajo yani marka fiiqow dhici lahayd sidii la dhaafin lahaa hataa waa hor istaagay waa uu ogolaan waayay in ninkii la dilo markii uu interrogareeyay oo dikaraasyoonii ugu horreysay oo ka qaaday isaga iyo Faarax Xasan iyo inspectoraha jeelka laascanood ay ka qaadeen kaarshiraha gudihiisa ay ka qaadeenna markii uu yiri xabaddu waa iga fakatay bedel ninkii ugu horreeyay oo yiri buu ahaa war waxaas wax laga maqlahayo ma aha sababtii aad u dishay iyo ciddii ku soo dirtay sheeg labadaas circumstance oo labada cadeynaya haddii bedel meesha uu ku leeyahay dam inuu kharijiyo barsandaha la kharijiyo uu ku leeyahay wuxuu yiri lahaa si ama uu ku cararo ninka kan ama askarta lagu kharijiyo ayuu fanka geli lahaa masibil sana weystay marka ma uusan yeelinin si alla si ninkii cadaalad horteeda oo ku gaaro ayuu ku socday marka taasna iyadana waxay ridaysaa wax alla wixii akuza ahaa oo lagu haystay sababtoo markhaatiga la furay waxay cadeeyeen bedel dadaalkii laga rabay mid ka zaa'ida inuu sameeyey si barsanto uu ku nabad galo jistadaasna ay ku toosto marka wax adabita ah binaal ah oo la saari karo bedel ma jiraan ninka ugu dambeeya Cabdi Rabbi waxa uu soo dacweeyay rabood buu ka qoray Saciid Yuusuf Ismaaciil oo leeyahay hal ruqseeyo marka haddii uu doonayo Cabdi Rabbi inuu Saciid ku isticmaalo si barsandaha loo dilo ma dhici kartaa marka inuu u qoro warqad shaqada looga saarayo inuu qoro saari kartaa ma dhici kartaa Saciid ma wuxuu ku nafac roon yahay si uu ku gaaro balaankaas si uu ku fuliyo sibilnimo miyuu ku fiican yahay mas askarnimo ku fiican yahay loojikadu waxay diidaysaa waxay leedahay ninku wuxuu xataraya markuu askari yahay oo bunta haysto oo yani masibilita uu leeyahay oo ku dhex geli karaa dadkii marka loojikada ayaa diidaysa taasna in uu ninkii uu rabo inuu ku isticmaalo inuu shaqada ka saaro midda kale waxa kaloo loojikada ay diidaysaa barsanduhu waxaa la hubay inuu visitaarinayo Burco wax cad bay aheeday laakiin lama hubinin inuu visitaarinayo inuu tagahayo soo booqanayo laascano marka haddii barsanduhu uu imaanayay Burco uu imaanahay maxaa sababoo looga baahnaa in loo diraa Burco in loo diraa laascano marba hadduu Burco uu imaanayo lana hubay inuu Burco imaanayo asaan la hubin inuu tagahayo laascano marka Cabdi Rabbi dirid uu diray halkaa waxay iska heeday mid caadi ah tiimka uu kamid ahaa ama bultuunka uu kamid ahaa ayaa halkaa loo diray organicamente sidii xafada horteeda ka cadaatay sidaas uu ugu diray iyadana taasoo weliba keentay inuusan aysan jirinin askartu inay yareenday oo lagu isticmaalay ilaaladii iyo askarta jeelka oo markaa magaalada laascano joogtay marka wax taa iyadana intaas wax dambi oo laga saari karayo Cabdi Rabbi iyadana ma jirto
waxaan gelaynaa marka ninka ugu dambeeyey Saciid Yuusuf Ismaaciil sidaan hore u sheegnay Saciid Yuusuf Ismaaciil maxkamadda horteeda wuxuu ka qirtay wuxuu yidhi barsantaha anaa dilay laascaanood horteeda wuxuu ku yidhi barsantaha anaa dilay markii xerada birmata dhexdeeda looga qaaday dikala sunan wuxuu yidhi barsantaha anaa dilay markhaatiyadiina loo keenan waxay yidhahdeen barsantaha ninkaasaa dilay marka iyadu taasi wax shaki ku jiro wax hadal ka joogo muran ka joogo ma aha xaggii sharciga Saciid wakaatiyaashiisii waxay ku doqdeen inuu leeyahay circumstance attenuante oo ah inuu ninkaasi l'aver commesso il delitto con violazione l'aver commesso il fatto per nobili motivi cioè ninka asagaahi sababta uu ku jiray presidentaha inay aheeday wadanku inuu khatar ku jiray korrupsiyoonihii iyo mal administrationihii iyo nooc walba yani wadanku inuu ka liitay saas daraadeed si wadanka uu ku salbaareeyo in uu ku khasabtay inuu qaataa buntuqa oo wadankii uu ka saaraa khatarta marka taasoo yani sida abukaatu uu ku justifikaariyey keenaysa circumstance attenuante maxkamaddu waxay leedahay halkaa circumstance attenuante kuma u jiro sababtana waxay tahay wixii divergenza politica ah wixii siyaasi isdhaafsan ninku xaq uma u laha inuu yadda ku isticmaalo inuu hub ku isticmaalo xaq uma u laha nidaam baa jira nidaamkaas ayaa lagu jebin karaa wax alla wixii divergenza politica ah ninna u ogolan mayso inuu yidhaahdaa waddankan fakinayay markuu dembi keeni kara beenadi moorta ogolo ama siyaasi ahaan baan u dilay sida yani uu ku dhawaaqay ama abukaat cabdilcaziiz ama ninka la haysta laftirkiisa insidii kuntar interrogatory uu yidhi nin waliba oo shikaadinaya siyaasi buu leeyahay marka waxaa weeye nin waliba siyaasadiisa waxaa dhici karta inaysan ku intidareynaynin ninka kaleo kasoo horjeeda marka hadduu yidhahdo siyaasadeyda ma waafaqsana ee marka hub baan ku isticmaalaya marka waxaan leenahay warqad fasax baanu siinayna nin walba markii siyaasadiisa aysan toosnayn uu inkuu raba uu ku dilo waa fasax waa lakin sida utiidare marka waxaan leenahay halkaa kuma u jiro circumstance attenuante bal kulliyan ba lakin waxaa jirta laba circumstance agravante ah inkastoo kii imputationaha ku yiilay 73 oo public minister uu ku soo qoray uusan meesha aan ku jirinin maxaa yeelay kaas wuxuu ahaa concorso marka dembigu 5 qofood iyo ka badan ay galaan sida markii lagu soo dacweeyey concorsadna meesha ay ka baxday marka artikelkaas 73 meesha kuma jiro laakiin laba waxa kalento agravante ayaa ku jirta oo maxay tahay 39 letter E iyo letter J oo maxay leeyihiin inuu ninka dembiga uu ku galay con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione Saciid askari bilis buu ahaa buntuq amniga inuu ku dhowro iyo risaas baa loo dhiibay si dan shakhsiyan oo uu isticmaalay marka waajibaadkiisii iyo amnigii asaga yani korka laga saaray ayuu jiriyey waxaa kalentoo agravante ah nin public official ayuu dilay president republica oo markaas wadanka u samaynayay shaqo caam ah ayuu dilay public official ayuu ahaa shaqo ayuu hayay marka taasuna waa letter J article hore aan u sheegay 39 waa laba circumstance agravante marka laba circumstance agravante waxa attenuante oo ka soo horjeedahay ma jiraan marka baan eegno midii ugu dambeysay oo ahayd indulto iyo amnestia dekreetadii la soo saaray 14 December 1969 Consiglio Costituzionale Supremo ay soo saartay article-keeda koowaad iyo kan labaad waxay leeyihiin dembigii reclusionihii la galay ilaa 21 October wixii ka horreeyey dembiyadii la galay ee kuwii laga saaray